deeqdan baabuurta oo dhammayd 5 baabuur ayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ku wareejisay taliska ciidamada asluubta Soomaaliland iyadoo deeqdan ay wasaaradda hore u soo gaarsiisay hay'adda UNDP agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland Khadar Axmed Diiriye ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqda baabuurta ah iyo ahmiyadda ay ugu fadhido taliska ciidanka asluubta Soomaaliland waxaan jeclahay inaan ku wareejino taliyaha guud ee ciidanka asluubta shantan gaari ee xaajidood oo runtii ay nagu deeqday hay'adda UNDP isla markaana ay ku deeqeen deeq bixiyayaasha European Unionka dawladda UK Ingiriiska iyo dawladda Sweden ay nagu deeqeen oo kamid ah mashruuca lagu horumarinayo cadaaladda runtii baahi weyn baa loo qabay waxayna kamid yihiin 10 gaari shan ka hore waxa lagu wareejiyay maxkamadaha shantanna waxa lagu wareejin doonaa ciidanka asluubka oo baahi weyn u qaba oo ay kamid tahay mashruuca ugu horeeyay taliyaha halkan waxaan kugu hayaa shantoodii furayaashoodii aan doonayaa inaan kugu wareejiyo mid walba taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeyo guuta Maxamed Cismaan Xuruun ayaa ka mahadnaqay deeqda baabuurta ah in la soo gaarsiiyay waxaan u tibaaxay kaalinta ay ka qaadan doonaan shaqada taliska ciidanka asluubta uu hayo shacabka Soomaaliland gawaarida loogu deeqay hay'adda Ingiriiska loogu deeqay waan ka gudoomay aad iyo aad baan ugu baahi qabnay ilaah baana laga helaa waana ku mahadnaqaynaa dadaalka noo dadaashay